tacaantigiisa tacaantigiisa waxa uu ku fiican yahay shaqo ka dhigtay therefore he runs a profitable business married to a woman who is very dear to him the question then becomes waxay isaga ku dhacday arrintan because labadan waxay muhiim u tahay dhahnay bulsho oo successful political society oo peaceful oo prosperous waxay u baahan tahay family oo loving ah si ilmaha oo maaragtay ilmo jacayl kusoo koran nolosha ay ku karaan fiican haddii kale ilmo dagaal ay keenaan bulshada businesses kana waxay ku fiican tahay if enough people of the society businesses leeyihiin then they will generate economic wealth baday shaqaaleynayaan canshuuray dalka siinayaan فهمت مركز سؤال شو مركز الربع اللي جوابه حوايه economic class كان in America حالها capitalist وحيليه ethics and work ethics وعليه كرتا وحيابه حيليه they call virtues نوعليه كرتا وحيابه حيليه إن سهل عليه إنه economically يهين مع دخلها ضلك أتوم وكبر بس كمان عين أنت شل معها عارين سواء كذي كان أساس وقالت هو هذه economic from social point of view of family كمرايكن كمعناها is وحقوق العقباتين من ضمنها هيسو لكن كان historically حلو هذا الياباني ما ربضن ولا دراسي وسويدن هولندا يضرب where وكجر family loving society وحسوا صار يسا produces المو ونحاليس بدن therefore balance كده and other so انت research كاس بوسوبيا دالك اسكندنافيا كي جابان you say they produce loving people ها معنا family كعادي ومعنا common sense وسمع هدي هوي أب إسجعل ما أيجا did they produce that أيجا سو صار مية ضد loving people ما يوحالي ضد كفاميلا دي أنت بدأ successful كعادة أو تدخل أنا لسه تيجي كمان كان both Western Europe دولات كيوروب Scandinavians they're one of the best ها وأنا أوجاتي دواي ضد كعالة حالة successful كأه minority ولا they employ majority of the people أيجا شغالين in this country هذا أساسه بقول كي بتوان ملاذ أو شيء عليه يعني تدو بدن سجاشن كلا تقول شكل سوا سيتين كلا تدو عملنا شو business لكن major corporate economic institutions هي هذا وين قاعد حتى الكلام بأي على شيء ما سباش ما يسوى دل والبو أخرى بين ورمل جعله لكن يوروب حوا يقول وين كده وين هاي أنا واخدنا قالها وحمود وسي سالكيس وسي بالعران more and more people own هالهانو أقول ما هنجري أنت حتى أساس واحد because حوا على واحد ذكر الشر كان بنيدي مركب ما حس الواجب ولا هنجري that's very small it's very small dadka oo wax kula soma si walba ka soo qaada ala su'aasha taagan waxay tahay dal hadii uu rabo inuu horumar balaaran gaaro waa inuu dhaqaale leeyahay dhaqaale inuu leeyahay waa in mujtamaca qaybo ka tirsan ay dhaqaale leeyihiin soma marka waxaa jirto social virtues sababo iyo dhaqano u sahlaya dadka qaarkood inay dhaqaale yeeshaan dadka kale tan wax taraan ayagana wax taraan dalkiina wax taraan familiyada soo socon marka su'aasha maana marka sidee ku dhacday waxay ku dhacday arrintan aan dhacday commitment to pre-planning ora loo sii qorsheynaa week ولا قرشينا بيش ولا قرشينا سنة ولا قرشينا جناسي وسيء قرشين family وسيء قرشين وحنا القرشين من الأولى قاعد وهاي محل وقالي وهي أنا القرشين ثم هذا حتى وقعتي أنا تسمع هذا تبع خدرك بتاع وهذا الأمر لا غرفة هذا ترى الغرفة هذين ولا غرفتها ولا غرفتها وجينا so what they do is the recognition setting in the night وكان وخوري سبعة حمد سبحانه affected people تضبعتهم ونقف عمل بدراسي dadka inta badan nolosha meel fiican ka gaara hadii aan la dhanka ganacsiga iyo dhanka qoyska isla markaasna qaaranka ugu balaaran bulshada sida anagoo kale macna xiisaa arrintaas oo Soomaaliya nabad ka dhacdo waxa la muuraan in qoysku oo qoys maaragtay isjecel oo ilmuhu jecel soo koraan si markaas ilmuhu ay noqdaan kuwa maaragtay bulshada u shaqeeya laakiin ayaga dhibaan kusoo kordhin family ka taas waa tan businesses kan inay yihiin dad inay soo baxaan ganacsiga dalka ku abuuro maalgashada si markaas heer gobol iyo heer qaranba ay u lahaan karta canshuur waxbarashada iyo caafimaadka ilaamiyada ku soo dalalka kale markii la daraasay waxaa la soo ogaaday waqtiga dadka inta middle classka waqtigooda waxay geliyaan bilbalaani way sii qorsheeyaan maxay qorsheeyaan waa su-aasha that's a very good question waxay qorsheeyaan kow prioritieskooda maxay yidhahdaan waxay isweydiinayaan maxaa ah prioritiskeena they find that qof walba marka uu bani aadana isaga ah priorities uu mission u leeyahay let's put it that way missionkiisana waxaa wax oo isaga laga rabo
now laakiin we're assuming inay wada dhacday su-aashan waxaan kuna see ku dhacday waxay ku dhacday marka commitment dad waxaa jira marka waxaan dhahnay post planning sameeya maalin walba waa gacan bil walba sanad walba wax waa qorsheeyaan laakiin qorshaha go-aan lama gaarin ah nolosha inay hore usii qorshaysanaato therefore markay dhacday kadib aa loo ordaa post planning naaga lagu guursanaa naagta markii la guursado malaska fiiranaa isu israaci kartiin kabacdi waxaa la isku dayayaa maalintii in wax la toosiyo taasna waxaa waaye soomaalidana xoogooda waxaa waaye maamahda ka dareemayo maamaha xaaji soomaalida hayso nini xaaskiisa olma maaha nabadna maaha ama beena lagu soo xerogeliyaa runna lagu dhaqaaqa taas xoogaa macnaa waxaa la dhihi karaa waa iska shukaansi waxaas laakiin midda ah olma maaha nabadna maaha basically waxaa waaye peace there's no peace there's no peace ومع دجال يجوا يا نبضنا مع دجال يجوا قلنا ما نبضنا ما there no peace نبض حتى نا in between واحد something بيت كذا كحكي عدا structure الفاميلي كمان wasn't functioning consequently the violence is inevitable بس كويس كمان anyway سوى بقى يا معناها خلاص إنه ضل كذا واحد لا ياب من قريش خوش دوس بسنين ومثلا مركا أنت بدن طبقة عن أو dalalka reer galbeedka dalalka horumaray maaragtay doorka ugu balaaran dhanka dhaqaalaha ka ciyaarta qoysaska ka dhisan yihiin ilmi waxa waaye intuusan markuu soo korayo waxa loo meel loogu kaydinaya lacagta ugu waraj ku aadi lahaa tababar u helaya hagaabinaya waa kuwa sasa I'm not saying macnaha inaan iska ilaalino waa maka hadloono maraykanka oo dhan maka hadloono waxaan ka hadlona dabaqadan dhaqaalaha ugu fara badan dalka leh waa iyadoo loo shaqeeya waana tan lama huraanka oo ah in dalku uu helo canshuur uu shaqaalaha dowladda lagu maaragtay lagu maareyn karo horumarinta mashaariicda horumarinta lagu maalgelin karo Soomaaliya 96 marka xorriyadda la qaatay dabaqadaas ka maqnayd strong merchant class dabaqad ganacsata ah oo dalka canshuur soo geysay macna Soomaaliya marka waxaa dhacday inay waxay dulsaar ku ahaan jirtay Soviet Unionkii dalka si shaqaalaha dowladda mushaar loo siiyo 1991 one of the reasons of معناها دولة وبرتي وحياة دولة لما ده البوليس كده شغالة دولة أنت مشهر سيكرين يعني US دولة مريكا كمان كلا عمتي واحد جانا عمتي لعكتي ورسيج ده كنا ما قصة هذا السعودية العربية هذا بالكاسة يسرق الصومالي مع الفضاء 20 يورو تاسع جفتين دولة بالبولس صار يسوحها مشغلين because basically حب the time they developed through that time. They developed a strong merchant class. Don't you think so? Somalia, ما يقولي. had لكن not ودن كصوماليا they developed, not Somalia. Somalia حتى عدا في تبدي يجوكتها. merchant class كذا تبدي يجوا. أبو ظبي يكين يجوا. because نبض عندك كذا. so Somalia they developed the name, but when إيمان كان عندي دولة اللي صادت أنا it's gonna they have more hope هذا than ever before. صح. self-sufficient and all. وقورة صنع لكن وقورة صنع تاسو قورة صنع مدام كحد الحوال ما تيجي صنع قورة ما تيجي merchant class وتاجر كرا طبقة وحاسوب حسوب كان عستا وتاجر كتدالك إنه دولتنا ما عندنا لسه أيقونا معركة عن شورت سكبيان هالكاسن أي فرصة كهلانا أيقنا كم على ستاند دويني هنا وصلنا أديك على بيو بعد عندنا تحمق لها كينيا يا أوغراتي دولة الصومالية إني عاشور يسوع dadka Soomaalida ka ganacsada Kenya Soomaaliya asama hakarti because waxa way dhibkaas taagan dawladda hadii aysan lahayn dakhli